warqabtana lama guursado warqabta naag jaamacada ka baxday ma ahayne naag laba nin ka badani furtay horta ahay laba nin ka badani naagay furtay bay ahay tawaarayta wax lana carmal tanku xigtana waxa lana baraqna nabis tasaddexaadna warqabto ninka tii koowaad furay waa karin leh kii talabaad furay waa xira bilaal kii tasaddexaad fura xadhig bahaysaa la odhan jiray ilaa waxaan iskuma jirinay ninka saddex furay xadhig bahaysaa la odhan jiray kolkaa dumarka yagii hore way ahaayeen waxay odhan jireen idhiba ku dhaqe iga dhana dhukade idhaa ku dhagayste saddex baa ku bedesheen idhiba ka dhaqde iga dhalan ku dhige idhaa dhaqaaqe hadalka dawla waa sii baxaysaa horta dumarkii hore iyo kuwa saasay u kala duwanaayeen dumarkii aan ku noqdo waxaa la odhan jiray laba waxaa la odhan jiray waxa keentaa guurka tooska waa reeraashka dabagalka ah ee jiraabti guursada labana waa ninan iyo inan iscaasoo reerkooda ilaa labada reer aan isweydiisano laba waxay ahaayeen waxa keenta geerida oo dumaasha iyo tala yidhaaho xigsiisan xurasho male baa la yidhi xigsiisan xurasho male carruurteeda afduwanta walaashad ka dhibatay reerkii baan golay carruurtii inaa kale u timaado inantu ahayd oo xigsiisan bay ahayd dumaashuna tii dee ninkii dumaashan ahaa inuu u diyaargaroobo ayaa la doonayay kolkaa wuu diyaargaro mid baa diyaargaroobi kari mabuu dareemin waa la arooray wuxuu aniga aqoontaa loo hor waraabiyo ma biyo cabeeya tiri isagoo dhexmaraya biyaa la dulgeeye ilaahay kii dilay lahaan dilay baa u gartay inoo kaxeeyo wey maalinteeda buu aniga aqoonta duhurkaa la waraabiyo oo ma biyo cabeeya tiri wuu wada biyo dhabayaa wuu kawkabayaa maskax guur weeyaan aniga gurigeena kuwar qareenahoyo inoo kaxeeyo maalinteeda buu casarkaa la waraabiyo ooyaba biyo soo cabe biyo maantoona anigu duufka ku daadinayay ayaa la dulgeeyey waa inoo kaxeeya ilaahay baa u gartee kolkaa waxaan u fahmin hawshii laga sugayey oo waa dumaashii dee in hawshada dhameeyaabay ahayd horta oo waa dumaashu waxay ahayd dee sheekooyinkooda waa maqasheen midna waxay ahayd taa xigsiisan taaho nin ayaa afduubnay labana godob reeb nabadgelyada la ydhaa mid godob reeb baa la ydhaao laba beelood markay isdilaan ee la heshiinaya habarnaada isdhaabsan jiray meel xijiritaan meel xijiritaan xabnaha yaallo ninkii aabihii la dilay marka ino la siiyo ee irabta dhashay meesha xabbaa yaalla nabad baa lagu dhalin jiray halkaa mid kalea jirto iyana nabadgelyada ka mid ahayd oo la odhan jiray ina baa la kubsaday ma maqalla oo la fara xumeeyey imika dadka gaalada iyo waxay waxbareen way dacaadeeyaan innagu waxaynu odhan jirnay qanaad buluxyada wuxuu dhibi qanaadku u ritaa labadii reer inay isdilaan oo xijiritaanato iyo in ninkii waxa sameeyeen lagu qasbo waxa fududaydoo yeeli jireen ninkii inanta fara xumeeye qasab inuu ku guursado quruxeeda wuxuu dhibi qanaadkeedu saarantaa la odhan jiray oo isagaa lagu qasbi jiray taasina caynkaasay ahayd waxay ahayd hablu way heerbi jireenoo heerin baa lagu odhan jiro inan heerin ahayd ma egta baa layidhi hadduu odayg hooban yahay hadduu nin dooban yahay ka heshaanay guursan jirtay mid kaleo iyaduna heerka ka mida baa jirtay oo la idhi way soo gashay oona hebel mad u gashay aadi bay intisaansanaysaa hadduu saddex dumara leeyahay mar hadday gelid maagto kama laabanayso iyo hadduu mid leeyahay dumarkiisaa ku jiri iyo carruurtiisaa ku jiri male laakiin maxay ahayd too howl badan bay ahayd inantaan waa inuu guursadaa ama inankiisa u guuriyaa ama isagu nin kale ku dhisaa haddii kale waxay qabeen reerkaasi xaalmo reeraanu qaban bay ahayd oo yacni aada looga qeeqsoodo mabay dhici jirin reer maaberi waxaa la yidhi sidaas iyo ilaa imika magac baa loo yaqaanaa reerkii inantaa ila waa in la beereeya horta habluhu sidaasay haayeen marka ay dooranayaan inagu dee berigii hore hablaha saasay noolan jiray oo guurku wuxuu ahaa
نوال ما وحير ترى إلى الجيانة من الجيانة كي جراد من الخضار اللي وريركا بضح من الخضار يا ريركا أكل شيء وأنا لك الجورتن وإن الجيانة كي جراد من الخضار اللي جيان وعلى يقول هذا جيان هذا معها وهو يجب كمان جورتن ترى ريركا ونوال هذا إن الريركا لا جورتن ترى حبلو صفارنا يا عين إلى نوع قلبي أبارك تعال والله قلبي أبارك يا جاي على الحين قبل ما نقول دجال عليه صفار الله يربله إمك تم حاله عند كلامك الشيخ إلى ما تعال على تصاوى قدره وأنا تقبل عليه إلى ما ديرله إلى تفار أبوي كان وين موسى فكرنا أنا محمد على الفرور وأنت إلى تجيب هاي محمد على الفرور بعد ولا إلى غلكة دائما يقول كان قول كي جاي كده هالكاس ومريا ودتك waxay marayaan inay deegoorkii waxaa si ximaaraysa iyo dadka si kala fogaanaya guurka la kala noqday beeli kala guursan jiray ayaa kowka ayaa anigu islaaya taa la oran jiray kolkaa waxay la oran jiray oo aynu inagu naqaanay halal kuwa kala socona إلى نيابي ما كمان ولا ضد لا ساوي أنا يوحي لا إلى نقدر نكرانه كره لا نقدر نشوف بوقا سوا وكبرابا إلى كلام حيري لا لا بس ترى نوري وكودي حاساوي سكبتشرن لما هذا دور يجرون ينقول سدوا لا واحد لا يجري ما تاني كانوا واضح كأوضح يا ولا اللي على العصنة أيه كلها ولا الليلة على اللاصم كل كوان الدور هنا العركي لكن واحد كقين واحد نشر هبر وقال لنا تقول سنة سوا هبر والله ما نقدر صدق حنا البيضة ما هبر هو حنقر على الدرجة هبر هو ما حنقر على الدرجة وحبك ما قرأت حمتي كمان قلت بقى كانوا السبعة صوحة بقى كانوا لا ودي سووا حسار الشري دمركة لما كنا يبقى مع هذا بوقة كقري waxay leeb ka sheekeynayaan awoodda dumarka sidaynu u wadnay waa aragteen inta laga sheekeynayo dumarka guradeegayaan sokeeye maaha waxaa la odhan jiray reer waa laqda biyo laagta leh taariboor haween reerkeed ma xumaado odayga iyo jiiraalku waa la dabayaan waka haweenay raacnaha adag sida loo wado waxaa la odhan jiray nin maalin ma gaadhin nina weligaaba ma gaadhin nina sanad ma gaadhin nin maalin ma gaadhin oo hadduu kaa faras wanaagsan maalintaa ma gaadhin nina weligaaba maalin ma gaadhin sanad ma gaadhin oo hadduu meel ugubaalan adigoo yaalla isaguna meelahooda la dego ood ka dhaq wanaagsan hadda sanadkaa kuma soo gaaraalay nina weligaaba ma gaadhin oo hadduu kaa haweena fiicaya weligaa ma gaadhin baa lay bal kuwa ilaaha dumarkee u xumaa dhaqankeenu soomaalida soo in badan kama ilaa maqal gaalada iyo dadka hal maalay baa ilaa waa gaaladii inta hal wada maaleen baa ilaa dumar badanna waa lagu qafiray waa la gumaysan jiray beerkii hore dhaqankeenu 10 shay u lahaa oo laynaga qaaday maxaa ka mid ah cadaaladda ma la yidhahaa dimuqraadiya waxaa cadaaladdaa jirtaa dee waxaynu idhaa gaal dil gartiisa la sheeg miyaanu dimuqraadiyadda sheegaan ahaynoo islaamiya gaal dil gartiisana sheeg wiilkaan iyo wiilkaan garta waa loo sibaa gar waa loo wado islaam bal haddee meela adaan cadaalad ahayn dadku waa kuu sileeyahay haddaad cadaalad qaadayso sii diintu sheegtay meana ahayn aynagu saynu odhan jirnay arrin laysku hayo abuur laysku hayo axbaar raba sheega arrintaada laga hadladaa buuli manaa mid baa waa ninkan ugu axbaar ila garramaya abuurtaada ka hadlaanayno lagama hadlo arrintaas dhaqankeenu ka sidaas cadaaladana ku abuu ahaa dumarkana ka sidaa ku abuu ahaa haddaba yaan laynaga raarinin wax kale dadka waxa kaloo ku soo gabagabaynayaa dadku gabayadu in badan bay soomaalidu gabayaa badan bay lahay dhaqan badan baa jiray laakiin soomaaliya 3 gooran gabay tartan la galay ingiriiskee 3daba aabihii baa qaatay aabihii maaha awowi maxamed cabdixaashim ayaa qaatay 3diiba maxaa lagu siiyey
ragga qabyaalada iyo waxaa ka gabya ayaanu ahayn ragga danta dumarka ka gabya adigoo dhacliyo dib lahayn laguna dhaariyaayo inuu dhaanka reerkana u rani waa dhab la hubaaye xagga deegaanka badu soo danka caqla kaaga dhici mayso ragga dumarka waaliya ayuu ahaa walaalkii baa dhintay gabadhii buu dumaaray kolkaasi way isqabteen inuu cabdixaashaa gabiyey maxamed baa gabiyey wuxuu lagu dhamaaday hadda horta gabayga anigoo kala barhaya ayaa xabar tartan lagu qabta waxaa la yidhi tartan waxaa loo tartamayaa gabayga u af soomaali badan raadowgaas waa midkeeno laba gabay baa ku jira gabay iskuulada lagu dhiga ma aragteen sida beena kaylaan oo kale ciyaamaya dee kaamil waa carabi soo maaha karaamana waa carabi labadaasaa ku jira alla kan maxamedo waxba ku jirin baan hayay wax carabi iyo ingiriisana ayaan hayay kolkaa gabadhii markaas qabteen buu gabiyey wuxuu yidhi ku dhammaada dabadee haddii gobolka sii joogo gati kale wanaagsana waxaa guriga ku oolin midhihii gardul loogu tegay gubasha weeyaan sida geer la-aadoo kale in gubayo orayso gurna iyo cagaar iyo hadaygeeda cuni weyn kii jiray gabay gurma dhameeya intaa ku dhammaada dabadee haddii wuxuu yidhi sida geer la-aadoo kale in gubayo orayso gurna iyo cagaar iyo hadaygeeda cuni weydo kii jiray gondaal iyo hadduu qarab u soo qaato oy gacanta duutaagtiraa soo gataan dhabato ninkii gobolka baan yidhi nin bu galabsanaya sida geer la-aad geeyada nin horoleedyada garabka laagisa kama kala wanaagsana habeenkii loo roorto nin gadaalisana nin buu galabsanaya gaadiidka qaarkii dibduu garabka taaga markuu gaarxarri ku durduragooda u boodaa garnoodsanaha baan haamaha lagala giigaayo hadduu xaasowlaalkaa biyo gooha noqon waayo ninkii jiijasaana nin buu galabsanaya sida geer la-aad gudladhaaf hadduu guurka kaga yoomo ay gobanadii jireelkaa tulida geylaasan galayuska khayrada hadda geesulma u yaacdo geesa hadday kala maraan ulaha gaagaaban gataan iyo wax lagu toogto iyo gudux hadduu waayo ninkii aalkasana ninbu galabsanaya nin dumaan wuxuu yidhi gacalnibaa haydan haddii guul lawadu keeno gabadha dumaan me walaad ma ka dhintay gacalnibaa haydan haddii guul lawadu keeno ilaahay iyo malukitoodku af soomaalida ku sheegay malayka gacalnibaa haddii guul lawadu keeno shigu dhaxay fidiya gawraca lagu laasto gaagii ka soo hadhay hadduu garasho soo moodo nin dumaar gargaal ninbu galabsanaya intaasuu uga soo socday gabaday xilaataa dharkay goodi bixisaa siday gabadh u noqoya reegii isku siisaa markaasay mid kala guursataa geelasheeta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed سلام عليكم السلام عليكم waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac aydwan aid si aad noogu xidhnaato hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland